بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب الندى ولا لها النجا سلامينا سنة إسلامك دس كبعدي وحان كودي لنا عيد ونكسنا وعن الله دمان عبادة النبي سنة كسون كان أقول إن شاء الله أنت وحادير وحان ربنا أنا إيو صاحب كي مرنا أبتغي عبد الرحمن عبد الله علمي أو قرب كي تاجن إن أنا نسينه فاهين ير أو قابن وكسر سنة GoFundMe أنا أساسني بشي أبريل ما كذي أو وجهنا فتحات بار ديري قدر سوماليا إن شاء الله ولا ليال سيدي نوع أمينتين وحاربنا إن أنا جنا أن أمينات ده نسكور الجنوب وأن كور الجنوب بديجا فتحات بار ديري ولا ليال محاسد قيستين الله صدقني نقبل إن شاء الله لعق جاري سوق دمان لحكم صدح بقول يصندور صومرتي GoFundMe lacagtaas sayto markii GoFundMe uu fiigoodi goostay waxay isku noqotay lacag gaarayso 6193 dollars lacagtaas waxaa dheer $100 oo cash ah oo mid qof ka naga siiyay waxaa kaloo dheer $200 oo kale cash kala oo gobolaasheen lagu soo xawilay markii dhammaan la isku geeyay lacagtaas sayto lacagtii waxay isku noqotay lacag gaarayso 6426 marka koowaad waxaan rabnaa in u mahad celino walaalaheen xawlaadda Amal Express oo arintan ka garab qaadatay markastana garab taagan arrimaha saan oo kala sida buurdhuubo qardho doolo iyo baar dheerar insha Allah Allahna ayagana muxuu u sadaqeeyo muxuu ahaa waxay la bixeen hana u kordhiyo muxuu ahaa maalkooda walaalayaal lacagta insha Allah gaari doonto guddiga arrintan qaabilsan ee Soomaaliya joogo waxay noqon doontaa lacag gaarayso 6300 lacagta commissionka oo naga baxday xawaaladana waa 126 qaasatan lacagta annaga nagula soo wareejiyay ama aan aruurinay waxay isku noqotay lacag gaarayso 6426 halkaas waxaan ku soo koobayaa in lacagtii aad nagu aaminteen annagana aan wareejinay oo aan ku wareejinay guddigii baar dheere hadda Cabdiraxmaan oo abtigaya marna saaxiibkee ba insha Allah insiin doono faahfaahin ah lacagtan waxa loo isticmaalo waxaan soo dhawo tankiintu waa maasantahay markuu hore subxaanahu wa mahad celinayaa dhammaan dadka qayb qaatay dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay GoFundMe lacagtii aan aruurinaynay waxaan kaloo mahad celinayaa xawaalada Amal Express oo runtii qayb muhiim ah ka qaadato markii fatahaadaha iyo dhibaatooyinka dhaca Soomaaliya qayb ka qaadato macnaha samayso qiimo dhimid xoog badan si dadka maaragtay Soomaaliya lacagta ku gaarto aad baan ugu mahad celinayaa xawaalada Amal waliba qaybta Seattle gaar ahaan MLK Martin Luther King Way South Seattle aad baan ugu mahad celinayaa ayagana insha Allah waxaan kaloo ugu mahad celinayaa mar labaad lacag kale oo ayadana gabdhaha daycareleyda magaalada Seattle gobolka Washington State magaalada Seattle ayadana ku wareejinay guddiga fatahaadda baar dheere ayadana ahayd 7705 totalkeeda lacagta ahayd laakiin markii xawaalada laga jaray waxaan u wareejinay 7555 ayadana wareejinay asbuucan hadda ah 2 maalmood 3 maalmood ka hor haddana waa tawarcaadii labaad oo aan maaragtay ayadana aan wareejinayno marka insha Allah lacagtan waxaan ugu talagalnay in dad raashin lagu siiyo umaana talagelin waxaan ugu talagalnay in lacagtan guddigu lacagaha kale uu aruuriyey uu ku xoojiyo in dhibaatada baar dheer xal loo helo in laga joojiyo meelaha biyaha ay ka soo galayaan magaalada haddii wixii la hayo in lala kaashado dowladda federaalka ah si maaragtay xal loogu gaaro degmada baar dheer maxaa yeelay dhibaatada waxay soo laalaabataa sanadkii 2 jeer xilliga guga iyo dayrta labadaba marka insha Allah waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay GoFundMe iyo maaragtay waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa gabdhaha reer Seattle daycareleyda gobolkeena Washington magaalada Seattle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.